mas-uuliyiinta wakaaladda biyaha ee degmada Sheekh ayaa bilaabay mashruuca lagu ballaarinayo biyaha degmada Sheekh kaasoo lagaga maarmayo booyadihii meelaha fog uga soo dhaamin jiray biyaha. maareeyaha wakaaladda biyaha ee degmada Sheekh Saleebaan Daahir Bisad iyo qaar ka mid ah waxqabadka degmada Sheekh ayaa ka warbixiyay mashruuca biyo ballaarinta ee degmada Sheekh ee gobolka Saaxil. maareeyaha ayaa sheegay inay gabagabo ku dhow yihiin howlaha biyo ballaarinta isla markaana ugu baaqay dadweynaha degmada Sheekh inay iska soo diiwaan geliyaan xafiiska wakaaladda biyaha ee degmada si loogu geliyo biyaha guryaha meheradaha iyo waliba hoteelada. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa wixii maanta ka dambeeyo horta doonayna guri kasta gelino waxaan naga go'an inaan biyaha magaalada wada gelino sida ugu dhaqsaha badan leh maanta laga bilaabo biyuhu waa u fasax xafiiska la tagayaa guri kasta uu gashan karaa si wanaagsan oo nagu socda waana gashan karaan diiwaangelintuna waxay ka socotaa xafiiska waana la iman karaa waxaan ugu baaqayaa bulshada inay mar haddii muddo badan biyo laayeen in sida ugu dhaqso badan leh ku gashadaan biyaha xafiiska iska soo diiwaangeliyaan diyaarna aan ugu nahay xafiiska dhexdiisa way ku filayn waana ka badan yihiin. qaar ka mid ah waxgaradka iyo bulshada ayaa iyaguna sidoo kale aad u soo dhaweeyay hawsha biyo ballaarinta degmada Sheekh waxayna sheegeen inay ka raysanayaan biyihii qaaliga ahaa ee booyaduhu kaga iibin jireen bulshada rayidka ah. waana kuwan Bashiir Cumar Cilmi iyo Suldaan Maxamed Maxamuud Aadan Fayl oo ka hadlaya arrinkaasi. waayo biyuhu waa nolosha koobaad dhibaatada ugu weyn baa naga haysan jirtay biyo la'aanta ee degmada Sheekh maanta se waxa weeye caqabadihii biyo la'aanta ee Sheekh haysan jiray waxaad moodaa inaanu ka soo baxayno biyo la'aantii oo booyadihii oo khaliya aanu ka raysanayno oo booyadaha iyo wakaaladdu markay magaalada ay waraabiyaan ay magaaladu heli doonto biyo ku filan sababtu tahay markii hore wakaaladda meesha ka maqnayd booyado khaliya dadka u dhaamin jiray booyaduna xaafadaha qaar baanay gaari jirin marka imika waxaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanu heli doono biyo nagu filan waxa weeyaan horta biyihii alxamdulilah ilaahay mahad ka gaadho in badan ma biyo la'aan haysi muddo badan baanu ka cabanayn muddo badan baa la lahaa tuushan jiray waa lagu maydhaa oo aan de waxbaani ka jirin maanta ilaahay baa noo soo diray ciidamo wakaaladii biyaha oo guuraysaa noo timi ilaahay mahad ka gaadho ilaahayba mahad leh kii noo soo abaabulay baa laakiin aanu mahad celinaynaa ee yidhi biyo Sheekh ha laga helo ee noo soo abaabulay. si kastaba ha ahaatee magaalada Sheekh ee gobolka Saaxil waxaa ku soo badanaya qaybaha kala duwan ee bulshada iyadoo ay magaaladu u muuqato mid sii fidaysa maalinba maalinta ka dambaysa. Saciid Axmed Tumrayse Sheekh.